Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada YouTube channelkeena iyo weliba muuqaal cusub. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku eegi doonaa halgankii dheeraa ee uu soo maray ikhtiraacista qalinka. Qalinku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha ee laga maarmi karin. Ugu horeyntii, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii koobaada uu abuuray wuxuu ahaa qalinka. Qalinkaasoo lagu qoray maqaadiirta. taasna waxay nagu tusinaysaa ahmiyadda aadka uu leeyahay qalinku. Ugu horeyntii, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadihiisii qur'aanka ee koobaad soo dejiyey waxa uu kaga hadlayay wax akhriska iyo ahmiyadda uu qur'aanku leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi suuratu nuun waalqalami wamaa yasturuun. sidoo kale Ilaahay waxa uu yidhi wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum. waxaasoo aayada waxayna tusinayaan ahmiyadda uu leeyahay qalinku. haddaba ugu horeyntii, ikhtiraacista amba fikraddii ahayd in la ikhtiraco qalin wax ka bilaamatay bini'aadamka farihiisa, isagoo bini'aadamku u isticmaali jiray farihiisa isagoo quusinaya dhiigga xayawaanaadka kuna qoraya sida godadka iyo dhagaxaanta waaweyn. kadib horumar ayaa uu sameynayay kadib 3500 miilaadiga ka hor oo ku beegnayd xilligii ay haysteen Sumerians oo ku noolaa dalka Ciraaq. kadib waxay isticmaaleen iyagu qalin sida musbaarka oo kale u eg. kadib 2500 miilaadiga ka hor ayaa masaaridii xadyaariinta ay soo saareen qalin ka samaysan sida tuurka oo kale. kadib 500 sano ka hor miilaadiga oo ku beegneyd xilligii Giriigu haystay ayaa wuxuu isticmaalay Giriigu baalasha shimbirka, isagoo u isticmaali jiray baalasha shimbirka si wax lagu qoro, isagoo muddo aad iyo aad u faro badan la isticmaali jiray baalasha shimbirka. sidoo kale carabta ayaa aad iyo aad u isticmaali jiray baalasha shimbirka ilaa laga soo gaaray xilligii Haaruun ar-Rashiid ee sanadkii 176 hijriyada. kadib horumar ayaa uu sameynay ilaa la soo saaray qalin wata khadkiisa, taasoo soo baxay xilligii Faadumiyiinta oo ku beegnayd 969 miilaadiga. waxaanu soo saareen Faadumiyiintu qalinkii koobaad ee dahab ka samaysan. kadib horumar ayaa kolba sameynayay oo horumar weyn ayaa uu sameynay qalinku ilaa laga soo gaaray casrigan. haddaba haddaan eegno dhinaca reer galbeedka, waxay ku qayaxeen qalinku inuu yahay carabka maskaxda oo waxay yidhaahdeen the tongue of mind. haddaba carabku wuxuu u sahlaa afka inuu si wacan u shaqeeya oo waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee bini'aadamku uu haysto. haddaba iyaguna waxay idhaahdeen qalinku waa carabka maskaxda, isagoo maskaxda ka dhigaya mid si wacan u shaqaysa xilliguu qofku wax qorayo. haddaba reer galbeedku waxay u dhigeen ikhtiraacista qalinka sida tan. waxay ugu horreysiiyeen qalinka la yidhaahdo the reed pen, waxaana la soo saaray 300 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam, waxaana isticmaali jiray the Sumerians. kadib masaaridii ayaa aad u horumarisay qalinkaas. kadib qalinkii ku xigsiiyeen reer galbeedku waa the killy pen, wuxuuna soo baxay qarnigii 6, waxaana soo saaray dalka Spain ee xilligaa la odhan jiray Andalus, waxaanu ka samaysnaa baalasha shimbirka. kadib ikhtiraacii saddexaad waxa uu ahaa qalinkii la odhan jiray steel point pen, wuxuuna soo baxay 1822, waxaana soo saaray ninka la yidhaa John Mitchell, wuxuuna noqday mid aad iyo aad uga jaban qalinkii killy pen kana degdeg badan. kadib ikhtiraacii afraad ay reer galbeedku idhaahdeen waxa weeye qalinka la yidhaahdo the fountain pen, waxaanu soo baxay sanadii 1827, waxaana soo saaray nin la yidhaahdo Partridge, wuxuuna noqday qalin aad iyo aad wax qoraalkiisu aad iyo aad u sareeya, wuxuuna wadan jiray uba yar oo khad ah. ugu dambeyntii qalinkii shanaad waxay yidhaahdeen reer galbeedku boil paint pen, waxaana soo saaray nin la yidhaahdo Lazella Birlo, isagoo ahaa saxafi ku noolaa dalka Argentina xilligaas. haddaba
kolba heer ayaa uu soo marayay qalinku ilaa hadda laga soo gaadhay casrigeennan aad qalinka si fudud meel walba aad ka helaysid isagoo nooc walba ah iyo moodeyl aad iyo aad u qurux badan leh. ugu dambeyntii waxaan kuu rajaynayaa inaad aqoon fiican aad u leedahay qalinka iyo halguu ka yimi. haddaba daawade nala wadaag qalinkaad mar kasta isticmaashid eed jeceshay inaad wax ku qortid. mahadsanid.